daawadayaal ku soo dhawaada warbixin kooban oo aan ku eegi doono taariikhda Berbera iyo isbedelada dhinaca horumarka ka hirgalay sanadadii u dambeeyay. Foxy way samirkuba hadii loo bislaaday bariyo galbeedkaba caalamka u baratama waqcadad ku taalo bulshadadii may garan baahida lagu qabo Berbera bariyo waxaad salugtaba bilicdi magaalada watan soo bidhaantay marka hore bariyo Berbera ma nabadba Berbera waa caasimada gobolka Saaxil amaba magaalada madaxda gobolka Saaxil loogu arrimiyo waa mid kamid ah gobolada ugu faca weyn Somaliland iyo guud ahaan mandaqada Geeska Afrika waxaana ku duugan taariikh badan waxaana Berbera juqraafi ahaan dhacdaa dhinaca waqooyi ee Somaliland waxaana magaaladani Berbera lagu naanaysaa in uu yahay gobolkii xadaarada iyo hooyada horumarka Somaliland halkan waa mid kamid ah xaafadaha ku yaala magaalada Berbera waxaana lagu magacaabaa xaafada Daaroole waxayna kamid tahay xaafadaha ugu faca weyn magaalada Berbera waana xaafad qadiimi ah oo aad ku arki karto dhismayaal fac weyn oo u badan kuwa taariikhi oo iskugu jira masaajida bineysna qarniyo ka hor iyadoona qaarkood la dayactiray iyo sidoo kale dhismayaal u badan guryo dabaqyo ah oo loo dhisay qaabab aad u farshaxamaysan oo heer sare ah paradii dadka eegayo bari hore warkeediyo Berberaan xasuustaa iyo bari samaadkii Berberaan xasuustaa iyo bari samaadkii Berberuu xasuustaa iyo bari samaadkii Berberuu xasuustaa iyo bari samaadkii paradii dadka eegayo bari hore warkeediyo Berberaan xasuustaa iyo bari samaadkii Berberaan xasuustaa iyo bari samaadkii Berberuu xasuustaa iyo bari samaadkii haddaba intii aan ku guda jiray diyaarinta warbixintani ayaa waxaan la kulmay mid kamid ah odayaasha ku dhaqan magaalada Berbera oo muddo badan iyo waayo badanba u soo joogay magaalada Berbera waxaana lagu magacaabaa Sheekh Maxamed Xaaji Maxamuud la sheekaysi badan iyo bariida kadib Maxamed ayaa iiga warramay taariikhii uu u soo joogay balse Maxamed su'aal aan weydiiyay ayaa waxay u dhignayd sidan maxay Berbera kaga duwan tahay gobolada kale ee dhigeeda balse Sheekh Maxamed jawaabta uu isiiyay ayaa iyana sidoo kale waxay u dhignayd sidan Berbera waxay kaga duwaneyd magaalooyinka kale wax weyn waxay kaga duwaneyd Berbera waxay ahayd magaalo qoomiyado badan ay isugu yimaadeen oo dad qoomiyado badan ka soo jeeda oo dalal badan ka soo jeeda oo carab badan oo hindi leh waa marka waxay ahayd magaalo qoomiyado badan isugu jirta oo aad oran karto dadka meelaha kale ka yimiyaan Soomaalida ahayn iyo dadka kale way isku dhadhawaanayaan marka magaaladan waxay ahayd magaalo xadaarad leh oo dadkoodu yihiin dad aad iyo aad walaalaah oo dad aad isu jecel bay ahaayeen dadka reer Berbera xadaarada Berberana meesha ka bilaabantay waxay Daaroole iyo Barwaaqo waa Daaroole waa xadaarada iyo asaaska Berbera halkii uu ka bilowday baynu taaganay masaajidkana waa Jiilaani haddaba daawade walow aynaan waqti kooban kaga gayoonayn taariikhda Berbera ee soo jireenka aynu milicsano xagga horumarka magaalo ahaan ka hana qaaday muddooyinkii u dambeeyay waxaana xusid mudan in maamulka degmada Berbera ay iskaga kala dambeeyeen golayaal badan
oo midba heer soo gaarsiiyey balse maamulka degmada ee waqti xaadirkani yahay midka ay bulshadu aad ula dhacsan yihiin waxqabadkiisa ku aadan bilcinta iyo ballaadhinta ka muuqata baryo waxaad saluugtaba bilicdi magaalada watan soo bidhaantiyey marka hore bariidiyo berberaay ma nabadba baryo waxaad saluugtaba bilicdi magaalada watan soo bidhaantiyey marka hore bariidiyo xamse oo ka mida dhalinyarta magaalada ahna gudoomiyaha mid ka mida ururada bulshada ee ka jira magaalada berbera oo aanu isna la kulannay intii aan ku guda jirnay warbixintani ayaa ii sheegay bulshadu aad ula dhacsan tahay amaba ay bulshadu aad ula riyaaqsan tahay waxqabadka maamulka degmada berbera. hadda waxaan ku jirnaa berber waxay la tartamaysaa maamulada wadamada caalamka magaalooyinka caalamka oo kale oo waxaad arkaysaa wadooyin fara badan oo dhismay waxbarashadii oo dhalinyarada reer berberiga hore markay secondary ka baxaan jaamacadaha waxay u tagi jireen magaalooyinka kale hadda jaamacadaha waaweyn baa magaalada ku yaala halkaas ay magaalada wax ku bartaan berber waxa la joogi jiray waqtiyadii hore 5 bilood oo kaliya hadda macal xagaagii oo imika aan xagaa joogno way camirantay magaalada oo taasna waxa suurta gashay horumarka iyo horumarka laxaad kale ay ka sameeyeen maamulka hadda golaha deegaanka waqti xaadirkan haya maamulka deegaanka iyo horumarkii iyo madaxdiisa runtii waxay qaadeen dhabihii horumarka iyo furihii guusha. geesta kalena intii aan ku guda jiray diyaarinta warbixintan ayaa sidoo kale waxaa ii suurta gashay inaan la kulmo gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo aan wax ka weydiiyey xanaqaadka horumarka ka muuqda degmada berbera iyo hiigsiga horusocod ee maamulka degmada ee duqa degmadani garwadeenka ka yahay waa mudane cidine. markaan sawir guud qaadano runtii isbedel ballaaran oo mug leh oo hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay horumarka hadday isla jaanqaad bulshadii iyo dowladdii sistamkii dowladnimo iyo bulshadii oo isla jaan qaadayba ayaa ka muuqda marka roolkii dowladuna buuxisay iyo roolkii shacbiga oo iyaguna ka dheereynaya ama barbar socdaba roolka dowladda marka isbedel runtii aad ballaaran ayaa 8 sanadood u qabsoomay bulshada reer berbera waa isu bedeleen hadday tahay dhismayaasha hantida maguutada ee ku soo kordhay magaalada hadday tahay babeeshka soo kordhay hadday tahay dhaqaalaha soo kordhay hadday tahay xaafado aan jiri jirin oo imika ciidaa ka badan runtii marka isbedel ballaaran oo mug leh waana janiste ilaahay subxaana tacaala uu bixiyo kadib aan arkaynaa ballaarin ugu sameynayo madaarkii oo kii guramaad dambe cusub la sameeyay aan arkaynaa warshado hor leh oo soo baxay aan arkaynaa anaguna waxa ku dadaalay inaan wixii hore ee maamulkii naga horeeyayna aan isbedelin oo maamulkii hore wixii uu tabcay inaan gacanteeda ka bixino wixii hore aan hagaajino wax dambana aan soo kordhino marka wallahi isbedel weyn baa si ay bulshadu u dareemso maana dareena kula farxsanaa tahay aad iyo aad u maasantay su'aasha ugu dambaysa aan rabaa inaan weydiiyo mudane gudoomiye waxa tahay ambaqaadka ka soo ambaqaadeen iyo hiigsiga iyo horumarka halka aad ku wadaan berbera intee u gaarsiisay idinku wallahi qabuulka ilaahay baa leh laakiin anagu waxaan ku hamiyeynay oo marka koobaad in magaalada berbera isbedesho himilooyinkii aan lahayn waxyaalaha ugu noomeynka nooca waxa way in muwaadinka reer berbera garto in nidaamka degmada uu isaga shaqaalo tahay maamulka degmadu in qofka muwaadinka ay shaqaalo tahay isagoo shaqeyso una qabato adeegyadiisa asaasiga ah inuu tafahmo marka labaad inuu fahmo dhaqaalaha dawladda hoose yaala inuu isagu leeyahay oo isaga loogu adeegayo caafimaadkiisa waxbarashadiisa leerkiisa biyihiisa horumarkiisa oo dhan noloshiisa oo dhan wax lagu qabanayo taasoo imika bulshadu aad iyo aad ay u fahantay laakiin anagu qulubteeda ku jira waxa weeyaan inay magaalo ka duwan magaalooyinka Afrika oo hiigsanaysa magaalooyinka horumaray caalamka sida Washington iyo maxaa kula New York iyo maxaa kula dowladaha horumaray inay noqoto marba steeben guurnay in waxaan ku guurnay guri yar yar oo shaashka ay si saarsaarna guri bangaloyiman samaysanay deerar waa meeshanay haddana mar labaad in isbedesho ayaan doonayna oo magaaladu ay yeelato tareeno ay magaaladu yeelato wadooyinkii highway-yada ay magaaladu yeelato goob magaalada dalxiis noqoto magaalo dhaqaale caasimadda qaranku meel weey laakiin waxaan rajaynaynaa inay noqoto caasimadda dhaqaalaha qaranka Soomaaliland uu leeyahay
marka himiladayada wixii aanu qabanayna waanu qabanay wixii aanu qaban kari weynay iyadoo qoraala ayaanu ka tegi doonaa insha Allah si halka loo sii ambaqaado ama mid ka wanaagsan baa loo sii saadaaliyo marka higsigaygu maaha mid dhow mana aha mid meel soo kacay waa mid meel fog ah waxaan aaminsanahay in gaari karno waliba dhaafi karnana haddaba daawadayaal waxaanu intaasi ku soo gabagabaynaynaa warbixin kooban oo aan diiradda ku saaranay isbedelada dhinaca horumarka ee Berbera iyo taariikhaha ku duugan magaalada Berbera